الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سورة البقرة أيين التفسير كذا كل حجرني آيات الشرية اللوات قال الله تعالى إلهي وحول وبشر وحاد نبي محمد وبشاريساه الذين آمنوا ضدك إلهي رميي وعملوا الصالحات عمل هذا ونكسرنا السميي أن الله من إليه نقب الشاريه جنات بيره جنة كويا له تجري من تحتها الأنهار واستيذنا وبيد وعيصدا وقلقليا وبيد لا يقاني كلما رزقوا منها مركز تو لغا راشمه اما عنا لغا سييه جنده من ثمرة من الله سييه رزقا ايده او ارساقد ايو تهاي دheefsanaya قالوا waxay leeyihiin هذا كان imikana la siiyay الذي رزقنا من قبل واكي imika ka horna la siiyay waqti ka hor baa kana la siiyay imikana la siiyay وأتوا به بولهاي والسية متشابها isagoo isu agag waxay hadalka u yiraahdeen waxan la siiyay isku wada agag walahum waxay ku leeyihiin ahlu jannaha fiha jannada dhexdeeda azwaajun xaasas mudahharatun lanadifiyay wahum dadka jannada ku jira fiha jannadaasay khaaliduuna ku waaraya allahumma ij'alna min ahliha waxaynu ku ducaysanaynaa ehelkeeda inuu Allah inaga dhigo bushaaradu waxa weeye wax wanaagsan oo qofka loo sheego oo ka farxiya farxad ka weynina ma jirto qofka muuminka ee awliyada ilaahay kamida in loogu bushaareeyo janno waxana quraanku ina baraya dadka inaynu had iyo jeer la ogaano wixii ka farxinaya oo aynu ka dayno wixii ka dhixinaya alla wuxuu waqulu linnaasi husna dadka hadalka wanaagsan u dhaha كلمة في عنين صدقتها هي أيو نبي محمد شاقي صلى الله عليه وسلم هل كأنك لقى يا وطنك الصومالي دا نقن كودو مرار بدن كنحينتا يدعاية دا إنو النغضة مركا يددكو إسواجهان نقن كي رسولك صلى الله عليه وسلم يستحابة دي سنة وحيهايين قفك مركا وح خير لي وصاكر له إلا كالبرات تمسيدي لوغو بشارين لها قرآن كنا تاسو إنا بريا jannadu waa meel qaaliya weeye aad u qiimo badan waxana lagu helaa sida ilaahay uu sheegay iimaan iyo amal wanaagsan iimaan dhabaho ilaahay la rumeeyay oo sharciga waafaqsan oo kii aayaadka hore ay ka soo dayriyeen aan ahayn amalkuna wuxuu saalix noqon karaa markuu waafaqsan yahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam daacadnimana ay ku jirto daacadnimadu munaafiqnimaday ka fogeynaysa diinto la waafajiyana bidcaday ka fogeynaysa jannooyinka had iyo jeer quraanku wuxuu aad u tilmaamaa oo lixdameeye meelood ku soo noqnoqonaya ereyga jannadaas oo markaa ilaahay uu sheego wabiyada iyo dharka iyo dooniga iyo midhaha lagu hayo taasina waxay ka faa'iido tahay waa jeclaysiin tarqiib baa la yiraahdaa jeclaysiin weeyo qofka bani aadamka ah wuxuu u samaysan yahay wax wanaagsan oo qiimo badan marka la jeclaysiyo loo sharxo inuu had iyo jeer u cishqiyo oo u hanqal taago oo u hawl galo wax khatar ah ku soo fool marka looga warramana dee inuu ka feejignaado ka dido oo dib uga joogsado waana sababta naarta iyo balaayooyinkeeda quraanku uu inoogu sheegay ahlu jannuhu midhaha jannada yaala
xagga tayada ma kala dhacaan xagga muuqaalkana way siman yihiin iyadoo laga yaabo dhadhanka inay ku kala duwan yihiin halka inagu aynu aragna midhahan adduunyada qaar way foolxun yihiin qaar way rifrifan yihiin qaar araggaaba diidaya marka kuwii hore la siiyey kuwa dambe iyadoo laga yaabo inay xagga dhadhanka ku kala duwan yihiin xagga muuqaalka way ka siman yihiin kulamaa rusiquu minha min hamara mar kasta oo jannadu waxa la siinaya u badan yahay kulamaa waxay tilmaamaysaa waa tikraar bay faa'iidaysaa soo noqnoqod raashinku ma kala go-ayo laa maqduucatin walaa mamnuuca deeqda meesha lagu hayo cunno leh ee cabitaan leh ee midho leh way isdaba taagantay kulamaa hal meeshan busaaradda ah ee lagu leeyahay mar safarkiibaa go-ay mar hebel baaba kuu diidayba mar adigaaba waayey waxaa ma laha mar kastoo midho la siiyo waxay leeyihin hada aladii rusiqnaa min qabl kani waa kii markii hore la siiyey ma kala dhacaan dhadhankii laakiin markay arkaan bay garanayaan ilaahayna waa kaa yidhi wuu isu wadeegay xagga muuqaalka waxa ilaahay uu raaciyey xaasasbayn le in la nadiifiyey waanay ku waarayaan waxaa halkaa lagu hayaa waxaan halkan lagu hayn dadku markay adduunyadan joogaan waxay la waasheen labadaa afka iyo ibta maxaad la heshaa unbaa lagu dagaalamaya afkaa maxaad la heshaa ibtaase maxaad la heshaa labadaasoo miir qaba oo laga dhargay halkaasaa lagu hayaa wax alla waxaa xarbu tadaafuc adduunyada maraya ee la dagaalamayo la is-eryanayo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo wixii xaas laga dhiganayay ama lagu hamad baxayay baa loo howlgalaya halkaasaa haddaba lagu hayaa halkan tani ma xidhiidhsano oo surma seegtada ku badan iyo isa seegseege waxa lagu hayaa halkaa wixii la cunayay wixii la cabayay iyo raaxadii rag iyo dumarba waana labada uu nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in xaaraan lagu isticmaalo yaa ii ballan qaadaya buu inuu afkiisa ilaaliyo iyo ibtiisa hoosoo xaaraan uu ka ilaaliyo aniguna jannada aan u ballan qaadaa kaadhkeedaan diyaaru laha rasuulku saasuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka waa lagama maarmaan qofka muslimka ahi afkiisa iyo iibtiisa iyo uurkiisa inuu xaaraan ka ilaaliyo si uu deeqdan ilaahay joogtada u helo waxa iyaduna si cajiib ah inaad intaaba wax la hesho labadaada afka sare iyo ka hoose intooda wax la hesho inaad weligaaba ku hayso oo aanu kaa kala go-in wahum fiiha khaaliduun dee waxay yihiin maxay wahum fiiha khaaliduun way ku waarayaan khuluudkuna wax cajiiba wey waynu arki doonaaye ibliis markuu degayey ama suldaarayey ama khiyaameynayay nebi aadam halkuu ka soo galay waxay ahayd hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiya aadamow wax la iska yeelanayo weligiioo adduuna macnaha deeq ilaahay oo la helayo oo haddana aan laga dhimanayn marka halkaa intaasaa isku hagaagsan sidaasuu qur'aanka kariimka ilaahay inoogu bushaareeyey subxaana wa tacaala ooriyaha waxaa halkan alle uu ku sifeeyey inay yihiin kuwo mudahara la nadiifiyey marka daahiran wa baatinan xagga muuqaalkana waa ka nadiif xagga macnawiyaadka iyo baatinka hoosena waa ka nadiif adduunyada waxaa la ogsoon yahay waxyaabo badan oo rag iyo dumarba hawl ku haya inay jiraanoo fudalaadahoo dheeraada saxaradii kaadidii wixii la odhan jiray dhalmada dhiiggii ilaa culimada qaarkood in badanoo ka mida waxay ku tegayaan xataa biyihii taranka iyo wixii la socsocon jiray midna ma jiro biyahan taranka uba dee waxay u iman jireen in dadku tarmo dee cidiba tarmi mayso qof waliba halkiisuu la soo jiifaa ku taagan yihi sidaa daraaddeed biyihii taranka iyana ma jiraanba fudalaadka dheeraadka lahaaba iyaga qudhigoodu ka mid yihin qofku raaxadiisiina sidii buu helaya baatinkiina dumarkii waa ka nadiif weeye oo markaa dee aan idhaahdo murankii iyo xaggii akhlaaqiyaadka iyo wixii oo dhan waa dad ka nadiif ahoo qof keliya ayuunbay ka dhigayn ahlujannuun qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi ina allaha ilaahay laa yastaxii kama xishoodo an yadriba inuu dad yahow idiin yeelo maalan maa tusaale kastuu doonaya ilaahay wuu idiin samaynaya bacuudatan kaneecuu tusaale ka dhigaya famaa fowqahaa iyo wixii ka sarreeya faama aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey ee alla yaqaanka ahaa fayaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalahaas alxaqu min rabbihim xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ama aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa araada allah ilaahay muxuu ula jeedaa bihaadaa tusaalahan
مثلا tusaale ahaan muxuu ilaahay kan tusaale uga dhigay kaneecadan iyo wixii la mid ah yudillu bihi kathiiran in badan ilaahay wuxuu ku luminayaa oo dadka ka mida tusaalaha wayahdi bihi kathiiran in badanina ilaahay wuu ku hanuuninayaayoo dee qofkii rumeeyaana wuu ku hanuunay kii dafiree diidee ka soo horjeedsadaana wuu ku hallaabay wamaa yudillu bihi ilaahay kuma luminaya ila alfaasiqiin kuwa alle ka fogaaday ee ilaahay diiday ayuunbaa sabab u noqonayaa tusaalahan inay ku gaaloobaan marka halkan waxaynu ka arkaynaa ilaahay baa wuxuu inoo caddaynayaa subxaana wa tacaala khalqiga adduunyadan ku nool kitaabkii loogu talagalay loo soo dejiyey rasuulkiina loo soo diray sala allahu calayhi wasalam inay yihiin qaar kala duwan way kala duwan yihiin dadku ma sinna way kala dhaqaaqeen qolo ilaahay wixii xaggiisa ka yimaada waxay og yihiin inuu caqligana u kordhinayo cilmigana u kordhinayo maslaxadoodii iyo dantoodana yahay mar walba way ku qanacsan yihiinoo way rumaynayaan qolana dee ibleys baa ka dhex hadlaya ibleys oo aynu arki doonno taariikhdiisa iyo howlgalku ku haya ilmo bani aadam ayaa jihaynaya oo hagaya oo ilaahay seejiyey wixii ilaahay ka yimaada xaggiisa kuma kalsoona way diidayn qur-aanku markaa wuxuu mar walba inoola taagan yahay shayga qiimaynta la idhaah oo dadku adduunyadan intay joogaan waxay mudan yihiin inaanay isku walaaqanaanin oo aanay ishuwanaanine dee ay qiimayn yeeshaan qiimayntaasay ku kala tegayaanna abaalmarinta aakhiro marka amhaasha iyo tusaalayaasha waa inagii soo aragnay iyo miisaanka iyo faa'iidada ay ku leeyihin qur-aanka dhexdiisa tusaalahanina sagaalkii tusaale suuraddan suuratulbaqara ay bixinaysay kii saddexaad weeye laba hore aynu usoo marno munaafiqiinta lahaa qur-aanku markaa xayawaanada sidaynu xusi doonno qaar badan baa qur-aanka dhexdiisa ilaahay xayawaanka oo abuuray ku xusaa nimankii gaaleed markay doonayeen inay duraan qur-aanka ama wax ka sheegaan waxay yidhaahdeen kitaabkani hadduu yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimi ila ilaahay waa mid wanaagsan waa mid aan cidila mid ahayne muxuu qur-aanka dhexdiisa tusaale ugu soo qaadanayaa kaneecada iyo duqsiga iyo quraanjada iyo xayawaanadaa yaryar waxana waa xayawaano yaryar xasharaada waa waxaan macno lahayn maxaa hadduu kitaabkan ilaahay xaggiisa ka yimi waxaa yaryarka ah loogu sheegay ee dadkuba aanu jeclayn u karaahiyeysto allaba wuxuu xusay subxaana wa tacaala halkan tusaalahani inuu yahay mid ilaahay xikmaddiisa uga jeedo ilaahayna aanu ka xishoonayn oo siduu uga xishooda dee waabuu abuuraybe mar hadduu abuurayba xikmadda uga jeedo siduu uga xishoodaa rab sirta ku jirta maroodiga ee nolosha ah ayuunbaa ku jirta kaneecadana waa sirulxayaa sirta nolosha taasay ka siman yihiin marka sifooyinka ilaahay uu leeyahy waxaa ka mid ah sifada xishoodka ina allaha xayiyun kariim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidkii saxiixa ah ilaahay waa mid deeq badan oo xishooda oo addoonkiisu hadduu gacmaha kor u taagu ducaystuu baryo ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo gacmihii oo maran kolle wuxuunbuu ugu soo ridi marka sifaadka ilaahay bay ka mid tahay inuu maaragtay yahay mid xayiyo xishoonaya laakiin xishoodkaasi baa ka duwan keennu waa mid qajilaad iyo qabandhacya ku jirto iyo si noqosho ilaahay ma laha subxaana wa tacaala kaasoo waa inaga duwan yahay maalan maa bacuudatan famaa fowqaha tusaaluhu doono ayuu samaynayaayoo kaneeco iyo wixii ka sii weynaa ama kaneeco iyo wixii ka sii yar kaneecana tusaale uu ka dhigaya sa ayaba sheegeen waanu ka yarayn karaa dadkii qolo waxay ogaadeen inuu tusaalahani xaqiyo way rumeeyeen waa mu'miniinta qolona waa kuwan ka hor yimid oo waa gaalo way ku gaaloobeen laakiin qur-aanku wixii uu sheego qofka qaata ee u hoggaansamaa wuu hanuunay wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin qofka diida waxyiga iyo wuxuu u sheegay waa faasiq ilaahay buu ka fogaaday bahashan la yidhaahdo kaneecada ee nimankaasi ay xaqireen ay yidhaahdeen qur-aanka dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha cajaa'ib waxay leedahay cajaa'ib cajaa'ibkeedaa inaynu wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana cajaa'ibka imika laga arkay markii dee daraasadaha la sameeyey ee qalabkan horumarsan ee mijharada iyo microscobyada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warramaynay ama mucjisnimadii qur-aanka
loo yaqaan al-i'jaaz al-ilmi i'jaazka la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka quraanku ka sii waramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kaneecadu iyadoo ah xayawaanka yar sidaa u yar haddana waxa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar inagu hayso hay'adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa u sababaha maxaa basharkii adduunyadan ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaa sabab u ah si bal caafimaadka loo horumariyo oo dib loo eego waxaan u malaynayaa 2014 meelaha in ahayd taqriiban daraasadii ka dambeeyay ma haynee ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kaneecadu ka dishay 750 kun oo qof balka sheekee adduunyadan dadka ku nool kaneecadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kaneecada noqotay xayawaanka adduunyadan basharka dilay ee khatarta ku haya kaneecada yar ee leeydi maxaa tusaalaha loogu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750 kun oo qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu istilayaan uu noqday 437 kun oo qof waa khatartay dadku isku hayeen iyo dadkan caalamka ee hubka sitay ee adarkaysa leedahay kuwa waxba iskaga harin inta kaneecadu dishay ayaa ku soo laabmaysaba way sii wadeen oo waxay yiraahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaabiinta oo kale maska iyo abeesada iyo sunta badan iyagu 100 kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka aydan khatarta badan ee miciyaha waaweyn ilaa 35 kun oo qof bay dadka ka dileen tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan waa baalkan yaxaaska la yiraahdo kun qof baa ka dilay weeyaan sanadka marka halka maxaad ka aragtay bahashii la xaqiray oo lolaha weyn bay iyada haysaba khatarta weyn ta waxdishaawada digabayda iyaba waa cajaay dhiiga dadka ka muudsata oo inay waxanta samaysay ku rinto ayaabay taasi sabab u tahayba kuweeda ragga ahi way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo ubaxay ka cabaan laakiin tadadigun baa la inagu saliday qalabkan daraasada lagu sameeyay markaa mutatawirka ah waxay yiraahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhood wax badan oo la yaabtaad ku arki laakiin awoodii ilaahay bay noo muujinayaan waxaas afkana waxay ku leedahay 48 ilkood inagu intaynu ilkaha leenahay ilkeenu waa misad ma tirisay wali ilkaaga 230 meelahaas way iyadu 48 way wayna dheert waxay leedahay 3 wadne mid qura hadaad adigu leedahay haduu istaago ay ku dhamaanayso iyada 3 wadna isbedelaya waxay leedahay sidoo kale sakaakiin lix ah ama khartuumkeena yar gafuurka yar waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyay marka ay qofka bani aadamka doonayso inay soo weerarto ur aad u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysaa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa marka halka inuu qof hurdo waliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa waxa muzawwada ilaahay uu siiyo shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiiga meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyay inay wadato qalab badan oo cusbitaaladan casriga ilmo bani aadam aan haysaninba oo shaybaara marka qofka kolkay u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiigiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiigiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysana adigu caawa kaneecad ka cabanaysa isna wuxuu ku leeyahay kaneecada sheegaysaa maxay ahayd fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiigiisa marka dadku waa ku yiraahdaa aniga dhiigayga macaano kaneecadu ima deyso iyo aniga dhiigaygu qaraariyo kaneecadu ima taabato markay qofka doonaysa inay durto waxay ku sameynaysaa takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysaa markaasay dhiigiina taxliil ku sameynaysaa markaasay tamyiicna ku sameynaysaa tamyiicu waa maxay
dhiigu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari kara dawadaana way ku daraysaa markay kaa dhammaysato ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii markay iyadu kaa dhammaysataa bay ku sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahay aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojinna way ku raacaysa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cununayso min cajaa'ib illaahi bay ka mid tahay cajaa'ibteeda waxaa ka mid a noocan ilaahda jinsigeedu ilaa 35 qaybood weeye noocyadeeduna ilaa 3000 meelahaasay gaadhaan waxaa aad u la yaab badan cilmiga casriga imika waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan ishu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yidhaahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilima qabatiya oo ay xambaarsan tahay taas waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa wuxuu talo ilaahay ugu raray ilaahay baa garanaya innagaba imisaynu xambaarsanay qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna calooshaynu ku sidanaa wataa lagu leeyahay qofka bani aadamka calooshiisa waxa ku jira xataa bakteeriya u baahan yahay oo dheefshiidkiisa ka qayb qaadanaysa Soomaa marka xayawaankaasi ama xasharada yaran microscope kun lagu arkayo way isxambaarayna dusha ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin culimada qaar kood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon kara fama fawqaha marka macnaheedu waxa weey ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuudatan kaneeco fama fawqaha iyo waxaan ay dusha ku sidato ila wuxuu diidayaa ma jireen lagu fasiro hadii wixii dusha ay ku sidatay la helay oo xasharaadkaas marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan arkaysaan kaneecada ilaahay tusaale idin ka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaale ka dhigaya almuhim intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awoodiisa uu leeyahay marka waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulayay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aad u waaweyn marka awoodii ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu ka arkayna kownkan iyo xayawaanada ayuu bay taasina kamid tahay wahada ma aquluhu wa astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وسورة البقرة آية التطبيع لباطن قال الله تعالى إلهي وحر الذين كوي ويان ضدك إلهي كفوا إلهي كوك عن صيري الذين كوي وينقضون بريني عهد الله إلهي بلنكيس من بعد ميثاقه انت وبلن كأتكي كدي ويقطعون وحي قوينيا ويشريا ما أمر الله وحي إلهي وفري به استغى أن يوصل إلى الحريرية ويفسدون وحي خربيا في الأرض دلك أولئك هم الخاسرون كوا ساقوا البريستي كيف تكفرون بالله تديه السداء إلهي وقالوا بيسا وكنتم أمواتا إذنكو أهاك ودنتي فأحياكم ويدين نولي ثم يميتكم هدنا ويدين دلي دورا مركا آخرة سنة إيسان ثم يحييكم هدنا ويدين صون نولين دونا مركا آخرة صوب حيسان ثم إليه ترجعون إنتا كذب إلهي با ليدين عرين دونا يو ألا ليدين هرقين دونا سبحانه وتعالى لقد مضى ذاتك إلهي قرآن كي سبينية وحكم ذا ballanku ilaahay kitaabka kaga qaaday ee rasuulkuna uu soo gaarsiiyay ee horena ilaahay adoomaha uga qaaday miithaaqa ay ballankaas ka baxaan oo ballan waxa uu ilaalino ama ilaaliyo un qof iimaan leh iimaanka qof kale ba aad u ilaaliyo ballan marka ballantu way la fududahay waxa laga yaabaa hadii maslaxadooda iyo manfaacadooda ay helaan dheef ay doonayaan inay ballanka jabiyaan ay ka baxaan sidoo ilaahay bay la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma qof mu'mina qaaluma ilaalinayo qaraabanimo ama xigtanimo iyo ballan midnaba ay ilaalinayo taas waa dhaqan ay leeyihiin iimaan laantaana keenaysa waxa kale gooyaan wixii ilaahay uu faray in la xiriiriyo wixii ilaahay faray in la xiriiriyo waa khalqigi qaybahoodii kala duwanaa ee ilaahay uu faray in la xiriiriyo ay kow ka ahaayeen ehelkaaga iyo jaarkaaga iyo madaxdaada iyo dadka
wada shaqaysanaysaan ama wada nooshihiin iyo muslimiinto dhan cid kasta oo xaq kugu leh xaqeeda fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacma absaarahum haddii aad diinta ilaahay kasii jeedsataan dad yahow waxay u dhowdihiin ama dhab ah inaad qaraabada goysaan buu ilahay arxaamta iyo qaraabada dunuubta waaweynna waa ka mid gaalkana dhaqan bay u tahay maantana casrigan aynu joogna ilbaxnimada ay sheeganayaan waxaynu ogsoonnahay qofka bani aadamka ah aabbaha iyo hooyadu mid waliba ilmihiisii yaraa uu tuuro xanaanu ku tuuray qofkii ilmihiina markii uu isaguna weynaaday wuxuu ugu abaalguday aabbihii iyo hooyadii inuu isaguna ka dhaqaajiyo markuu 18 gaadho oo kadibna iyagana xanaanadii lagu tuuro halkaasay qaraabo goysnimadii ayay shaqo u noqotay caan ku noqdeen wuxuu ilaahay sii raaciyay arrintaa natiijadeedu inay tahay ulaa'ika humul khaasiruun macnaha haddii aad diinta ku dhaqmi weydo khasaara kuu dambaynaya si kale haddaynu u dhigno xaqu ilaahay lahaana way diideen xaqii khalqigu ku lahaana way diideenoo way dafireen natiijadooda adduun iyo aakhiraba waa khasaaro istifhaam baa halkan ilaahay uu soo dhigay su-aal loo yaqaano inkaari iyo tacajubi waa la yaab ilaahayna uu tacajub uu leeyahay aan keenna la mid ahayn subxaana wa tacaala bal anigu waan la yaabsanay idinkuna la yaaba sidee ilaahay uga gaaloobaysa isagoo gacanta baa idinku haya laba geeriyood iyo laba nololood oo dadku uu maro isaga idin mariyay rabbi subxaana wa tacaala laba geeriyood ama laba dhimasho iyo laba nololood la tarkabunna dabaqan can dabaq qofkii marxaladuu maraya yaa mariyey ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaaha saa ku abuuree marxaladaha ku marinaya gacanta kugu haya sidaad uga gaalowday dee insaanku u abaallaaway insaankan iimaan laha u ahay marka geerida hore waxaynu geerida dambe waynu garanay de waa tan aynu sugaynaynu dhimanayno labada nololoodna waynu garannayoo midi waa tan uurka hooyo ilaahay uu nagu nooleeyey midina waa ta aakhiro lasoo noolaynayo khalqiga lasoo noolaynayo aakhiro lasoo noolaynaya marka la abaal marinayo taa garanay marka geeridan ilaahay uu horreysiiyey ee uu yidhi wa kuntum amwaatan waa geeriyeyseen maxay noqonaysaa ee uu ku bilaabay ee afarta u horreysa waxay leeyihiin qofka bani aadamka ahi dee waxba la-aanba asal u ahay ma wax jiru ahaa mise waxba la-aan waxba la-aan buu ahaa marka mar hadduu waxba la-aan ahaa waxba la-aantaas waxay u dhigantaa isagoo noolayn dee muu noolayn wuu geeriyeysnaa mar haddaanu jirin dee mar haddii aanu jirin oo waktigaa aanu joogin wax geeriyeysanoo kale u ka dhignaa insaan noola ama ahayn dee hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuran qofkii bani aadamkaa waxa soo maray baa ilahay ui wakti oo aanu ahaynba wax la sheegaba muu ahayn markaa wuu geeriyeystaa culimada fuqahada ee axkaamta mararka qaarkood baa waxay kala soo baxaan aayadaha caqiidada ka warramaya masalooyin fiqiya marka waxay leeyihin ilmaha yari hadduu soo dhasho isaga oo aan noolayn wax xuquuqahoo uu leeyahay ma laha qofka nooli xuquuqduu yeelanayo ma yeelanayo leannahu wuxuu la mid yahay jaamidaadkaasuu la mid yahay jaamidaadkaa waxaa qalalan unbuu la mid yahay marka xuquuqdii qofka noole uu lahaa sida salaadii iyo iilkii iyo qabrigii iyo dhaxalkii iyo waxyaabihii nooca ahaa ma yeelanayo oo waa arrin kala saaraysa qofka bani aadamka ah iyo la-aantii noloshaasaa kala saaraysa masalada waxa iyadoo ay ka hadlaysa caqiide aayaddu haddana masalada fiqigaa bay kala soo baxeen huwa ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi jamiican wax allo waxaan dhulka ku haysaan dhammaantii idinku idiin abuuray uma istawaa ila asamaa samada ayuu intaa kadibna ilaahay u qastiyey fasawaahunna 7 samaawaat wuxuu ka dhigay 7 sabo wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay uu ogsoon yahayoo waxba kama qarsoomaan rabbi waxa ilaahay uuna tusinayaa siduu abuurkeenna u leeyahay inuu arsaaqadeennana u leeyahay bal xaggeed ilaahay uga firdhanaysa xaggeed kaga kaaftoomaysa xaggeed uga gaaloobaysa isagaa ku abuuro marxaladaha ku mariyay intaadi ifkan joogtana
adduunkan inta aad joogtana arsaaqadaada isaga haya wuxuu ku abuuray halkaad ku nooshahay cirkiyo dhulkii aad ku dhex noolayd buu ku abuuray arsaaqadaadiina isaga haya khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka waxa dul saaran oo dhan buu idiin abuuray idinka marka laamtu tacliiliyana way noqon kartaa la leeyahay ama ibaaxana waa noqon kartaa idinkaa la idiin ibaaxeeyo xalaal idiin ama dartiin baa loo abuuray si kale haddaad u dhigto kownkan aynu ku noolay waa ku casuumanahay ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxaynu ku noolaanaynay iyo waxaynu neefsanaynay iyo wixii anficeennu ahay oo dhan buu diyaariyey qof haddii la casuumo oo casuumadaad u qiimo badan oo wanaagsan la keeno maxaa la gudban waxaa la gudban dee si adab leh inuu casuumadiisa u intifaacsado oo una mahadnaqa ciddii casuumtay mar haddii iminka lagu casuumo oo casuumad qaaliga lagu diyaariyo oo aan cidiba gaadhayno kharashkeedu badan yahay oo markaad timaaddo ciddii ku casuumtay aada gurigeedii kharibto oo isagii aada caydo oo dhan walba u riddo xumaantii maxaa lagu odhan dee waa in lagu garbaduubo weeye waa lagu garbaduubaya nin waalan baata abaallaa waata markaa sidaas oo kale haddaad taa la yaabayso qofka noocaa sameeya in dee sidaa dadku u arkayaan haddii aada la yaabsan tahay waxaad la yaabtaa ilaahay adduunkan sidaa isugu keen qoofale isugu keen hagaajiye inoo barwaaqeeyey ayna dhex keenay inagoon itaaliya arrintoona lahayn insaanka ku gacan sayda ee yidhi ma jirtid ee yidhi kuma caabudaya ee yidhi waxaa xaq uma lihid ee dakhiro ilaahay subxaana wa tacaala maxaad loola yaabo wey marka ayaddu waxay daliil u tahay culamada fiqigu sida ay maaragtay masaladaa u caddeeyaan ama aayaddaba usoo daliishadaan ana alasla fi lashyaai alibaaxa waxaanaynu dhulka dhexdiisa ku hayno waxa ma asalkiisu ma inuu xalaal yahay baa mise waa inuu xaaraan yahay waxaan dhulka dhexdiisa yaalla ama badaha yaalla ee dhir leh ee xayawaan leh ee dhaqdhaqaaq leh asalkiisu waxa weeye inuu xalaal yahay ilaahay baa halkan ku caddeeyay waxaan abuuroo dhan dhulka dhexdiisa jamiican buu weliba kusii adkeeyey wuu sii adkeeyey marka hore wuxuu uhi idinkaan idin abuuray haddana dhammaantiibu waa idin wada xalaal marka wixii aada cunayso haddii lagu idhaahdo waa xalaal oo waa xaaraan baan leeyahay waxaad leedahay maxaa daliila ee xaaraantinimaynaya ilaa asalku wuxuu ahaa wixii halkan aynu cunayno iyo waxaynu cabayno iyo waxaynu intifaacsanayno dhan adduunka inuu xalaal yahay marka waa in la helaa shayga xaaraanta ah wixii daliilahaa ee xaaraantinimaynayay haddaynu daliil weyno shaygaa aynu intifaacsanayno adduunka dhexdiisa daliil xaaraantinimeeya inuu xalaal yahay baa lagu wadaya cilalka had iyo jeer markay fuqahadu ka jawaabayaan masaladan waxay leeyihin wakaana alaslu fi lashyaai libaaxa masaladan isaa weeye shaygaasi waa xalaal dee shay walbana waxa u asal ahaa inuu xalaal yahay daliil xaaraantinimeeyaana kuma soo aroorin daliilka had iyo jeer xaaraanta loo qaadanaya inuu daliil yahayna waxa weeye daliil sugan weeye waa inaanu xadiid daciif ahayn ama waa aayad muxkama ama waa xadiid haabit ahoo sugan wajanib الضaciifa fi اlcaqaa'idi wa xukmi rabbina alcadiim اlwaaxidi sida ay leeyihiin culamaa اlisطilaax xadiidka daciifkaa uma daliishanaysid caqaa'idka ama caqiidooyinka iyo xalaashiiyo xaaraanta waxaynu kalooynu ka faa'idaysanaynaa aayadda xalaashiiyo xaaraanta inay badan tahay xalaashu xaaraantuna yar tahay waxa xaaraanta haddii la tiriyo wuu yar yahayba dadkunbaa ibtilaysanoo kullu mamnuucin marquub baa lay qofka wixii loo diidaa unbuu ka daba dhacaa si eegayaae inta xaaraantiiba waa yarta oo haddii aad arki doonto nebi aadam calayhi salaam waxa la jannadaasoo dhan daaq waynu arki doona waa gaari shadiisu waa tan soo socota laakiin geedkaas un iska ilaali jannadii iyo geedka iyobaa badan dee waxa badan jannadii ilaahay baa badan geedkiibuu markaa ayuu ku dhegay odaygii islaanti oo midi ku riixay inkaar qabo ibliis la idhaahdaa innagana bal waxaad isu eegtaa adduunkan waxa yaalle faraha badan ee bad iyo berri ku jira ee la dheefsanaya farabadnaantiisa ee xalaasha ah iyo in yaroo la tiriyeyba oo xaaraana dee intaa yarunbaa geedkii ka dhigan marka haddaad la yaabi lahayd odayga iyo islaanta arrinkooda soo socdo ee nebi aadam iyo xaawo ood odhan lahayd maxaa ku saliday geedka ma inta kalaa ku filayda intifaacsadaan jannadaa baynu iska joogi lahayne adiga maxaa kugu saliday
xaaraanta dhirteeda la waaba yar tahaybe waxaad kula yaabta waalidka ma jiro adigaaba lagu yidhi waxa la waxa kownkan yaaloo dhami xalaal buu ku yahay dhowrkaa geeda xaaraantuun iska daa waaya taasina midaynu ka faa'idaysano weeyaan istawaa erayga ahi mar mafcuul toosa buu qaataa isagoo xaraf jaar aan isticmaalayn marna wuxuu qaataa erayga ilaa ayaa ka dambeeya sida halkan oo kale marna calaa baa ka dambeeya marka calaa kolka ay ka dambayso macnihiisu istiwaa buu noqdaa in shaygaasi uu ku ekaaday laakiin kolka ilaa ay ka dambayso sida halkan oo kale waa macnihiisu waa qasad weeye oo istawa uu ku egaaday halkan maahee ilaahay samadiisu u qastay weeye toddobuu ka dhigay wax walbana wuu karaa dhulkiibuu abuuray wixii khayr dhex yaalay buu abuuray samooyinkiioo toddobaana wuu abuuray toddobadii dhulkiina waa toddoba marka intaasoo dhan waxaa lagu cadcadaynayaa ilaahay ku abuuray ee intifaaca iyo arsaaqadaa ku siiyey ee adduunkan kugu casuumay edhab uga dambeeyo ka amar qaado marka halkan waxaa rabbi uu xusaya haddaba khalqigan caqliga leh inta caqliga leh ee ilaahay u abuuray waa jinka iyo insiga iyo malaa'igta saddexdaa qaybood iyo abuurkoodii hore iyo imtixaanada la soo maray iyo imtixaankaa cidda ku guulaysatay iyo cidda ku fashilantay qisadii nebi aadam oo qisooyinkii aynu xusaynay u soo horeysa ayaa halkan aynu ku arki doonaa qisaska had iyo jeer qur-aanka dhexdiisuna faraha badan ay noo iman doonaana faa'iidooyin badan bay leeyihiin qisooyinkaasi faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah nebiyada iyo wixii dhibaato soo maray ayaa rabbi inoo caddeeya subxaanahu wa tacaala si aynu ugu cibro qaadanno laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab cashar iyo deris baa ku sugan nebiyada qisadooda ciddii caqlina ay wax ku qaadan karayso dadkii ahlulkitaabka ahaa qisooyin badan baa kutubtooda ay xusayeen dadka been bay uga sheegeen qisooyinkii ay badbedeleen bay ummadda u keeni jireen qur-aanku sida xaqaa buu caddaynaya oo carabtii ay harawsan jireen ama beenta u sheegayeen iyo ummadihii ay beenta gaadhsiinayeenba beentoodii waxa suulinaya qisadiioo saxa ayaa qur-aanka kariimka ilaahay uu kusoo bandhigaya subxaana wa tacaala faa'iidooyinka qisooyinku leeyihin waxaa ka mid ah dadka kibre iyo kuwa daalimiinta ah ee dulmifalayaasha ah markay qisada akhriyaan ay arkaan dee waa inay gartaan cidhibxumadooda halkay ku dambaynayso ilan intaasoo daalim baa adduunyada soo maroo kibre oo adhaxda ka jabay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka u akhri bal inay kuwaasi fikiraan ay wax qaataan buu ilaahay wa tahbiitu fu'aadi rasuul walikulli daaci qisooyinku nebi maxamed bay qalbiga u dejiyaan iyo qof kasta oo xaq wado oo wanaag dadka gaadhsiinaya wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinka aan kuu sheegaya qalbigay kuu sugayaan nebi muuse ilaahay u naxariista buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markay damqado waxa la dhibay inta aniga la dhibay in leeg inta aniga la dhibay in ka badan baa la dhibayoo aniguna waa inaan iska safraa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qisooyinku had iyo jeer waxay noo caddaynayaan manaahijtii iyo hadyigii iyo dhaqankay nebiyadu ku socdeen iyo qolyahoodii habkay ugu baaqi jireen ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum iqtadi nebiyadaa ilaahay baa hanuuniye bal adiguna manhajkoodii ku soco baa layna leeyahy waa darbun min duruubi tarbiya qisooyinku had iyo jeer waxa weeyaan bani aadamkan adduunyada soo maraya siiba dadka muslimiinta waa shay rabeeya cid waloo bulshada ka mid ihiba markay qisas ka akhrido casharo khuseeyay ka helaysa maalan qolada dhaqaalaha markuu qofku akhriyo qisadii nebi yuusuf dhaqaalo saxan oo horumar leh ayuu ka helayaa istaraatiijiyad leh waata kutubtaba laga qoray iyo dhaqaalaha faasidka ah oo kii qaaruuna dadka had iyo jeer madaxda iyo mas-uuliyiintu madax wanaagsan oo ay ku daydaan oo caadiliina oo dal iyo dadba anfacay bay qisaskaa ka helayaan sida nebi sulaymaan iyo dulqarnayn iyo nebi daawud iyo dee dadkii qur-aanku uu tilmaamay istibdaadkooda iyo kelitalisnimadooda iyo guuldarrada ay uga dhaceenna qisadii fircoon bay ka akhriyi karayaan dhallinyaradoo kale qisadii nebi yuusuf markay akhriyaan iyayna shucayb qisadoodii dee xishoodkii iyo cafaafkii iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo siduu dhaxalgalka u yahay ayay ka arki karayaan dadka mubtaliintii tasliyay ka helayaan dadka had iyo jeer dhibaataysan
ama adduunkan ku imtixaanan ama diiqad iyo cidhiidhi ku noolaan lahaa qisooyinka markay akhriyaan qur-aanka waliba suuratul anbiya aad akhrido qisadii nebi ayuub oo kale iyadana cibra ayaa kaaga kordhaysa qisaskaasi had iyo jeer waxyaabahaasay u taagan yihiin waxaa kalood ka arkaysaa diimaha samaawiga inay leeyihiin waxyaabo badan oo shuruucda ilaahay uu dejiyo oo mushtarak ay ku yihiin ay wadaagayaan oo tawxiidka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo naxariista iyo waxaasoo dhan oo ay wadaagayaan oo aan naskhi gelin oon iyagu isbedelin waxaynu ka daalacan karaynaa sharcan man qablana rususha inaga horreeya sharcigooda ayaynu ka arki karaynaa qisooyinkaasi markaynu qur-aanka dhex galno waxaynu arki doonaa nebiyada qisadooda uu qur-aanku soo bandhigay waxaa ka mid a nebi aadan nebi nuux nebi huud saalix ibraahim ismaaciil luut isxaaq yacquub yuusuf awlaaddii asbaadu loo yaqaanay alasbaad ilmo yacquub ayuub dulkifli shucayb yuunus muusa haaruun daawud sulaymaan zakariya ciisa yaxya ilyaas yasac intaasoo dhan waa nebiyada aynu qisaskooda ku arki doono 114 suuradood ee qur-aanka ee suuraddan ay usoo horeyso waxaa jira qisasulxukamaa dadkii xikmadda badnaa qur-aanku hoosta uu ka xariiqay ama calaamadiyey qisooyinkooda iyo faa'iidooyinka laga qaadanayo sida luqmaan ulxakiim dulqarnayn khadir cusayr qisas xataa dumarka ka warramayaa jiro oo dumarku wax badan ay ka qaadan karaan qaarna ay ka feejignaanayaan dhaqankoodii xumaa qaarna ay ku dayanayaan sida xaawa oo maaragtay dee nebi halkan iminkaba aynu ku arki doono qisadan nebi aadam asalkii bani aadamku uu ka farcamay iyo xaaskii fircoon aasiya bintu musaaxim nebi luud iyo nebi nuux xaasaskoodii oo iyagana laga dayriyey oo khatar badnaa nebi ibraahim xaasaskiisii aajare iyo saara magacooda qur-aanku aanu caddaynin laakiin awsaaftoodii iyo tilmaamahoodii uu tilmaamay gabadhii boqoradii sabee balqiis magaceeda lagu sheegay iyo taariikhdeedii iyo habartii inkaarqabtada ahayd ee umu jamiil la odhanayay ee qur-aanku halkee ku sheegay iyadana wa imra'atuhu xamaalata alxadab habartaa inkaarqabtada ah almuhim qur-aanku waxaa kaluu tilmaamayaa xayawaanada iyo qisaskooda sida asxaabulfiil iyo qisadii saca hashii nebi saalix quraanjada iyo qisadeeda kaneecadan aynu arkayno xuudkii nebi yuunus liqay ximaarkii ama qisada dameerka aynu xagga dambe ku arki doonno quraabkii iyo tukihii qoladii asxaabulkahfi iyagana aygoodii oo la xusay hudhud iyo daabatul-ardi bahasha loo yaqaanee muxuu ahaa aboorka ushii uu nebi sulaymaan ku taagnaa isagoo cunaye saa uu ku dhacay almuhim waxaasoo dhami duruus iyo cibar iyo casharo ayaa ay xambaarsan yihin oo aynu arki doonaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi waid wadkur nebi maxamedow xus darafkaasi had iyo jeer darafkaasi wuxuu u taagan yahay inuu ficil baa ku tacallu ayaa maaragtay ku camal falaya id waqti xus nebi maxamedow qaala rabbuka lilmalaa'ikati rabbigaagu wuxuu ku yidhi malaa'igtii innii jaacilu fi lardi khaliifa dhulka waxaan ku abuurayaa mid khaliifo ah khaliifa waa dad isdhalo oo isbedela qaaluu waxay dhahan atajcalu fiiha dhulka ma waxaad ku abuuraysaa man yufsidu fiiha dad khariba wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya wanaxnu nusabixu bixamdik annaguna waanu kuu tasbiixsanaynaa mahaddaada annagoo ku darayna wanuqadisu laka taqdiisku macnaha waa ku hufaynaayo wax ceeba kuuma ogolin oo kuuma sheegayna qaala ilaahay wuxuu uhi innii aclamu anigu waxaan ogay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn wacallama aadama alasmaa'a kullaha magacyadii oo dhan buu baray nebi aadam uma caradahum wuxuu u bandhigay magacyadaas wixii macnaha lagu magacaabayey eshayadii cala almalaa'ikati buu bandhigay malaa'igtii buu waxyaabaha hor keenay faqaala wuxuu uhi ambi-uunii waxaa iiga warantaan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda in kuntum saadiqiina haddaad tii kuwa run sheegaya annagaa macnaha wax og haddaa ku run sheegaysaa marka qisadaasi halkaa ka bilaabantay waa qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo xaawa iyo marxaladihii abuurkooda uu soo maray ama aan idhaahna imika halkan waxay u taagan yihiin siduu ilaahay u maamuusu jannada u geliyey ama uu ugu sujuuday malaa'igta u faray inay u sujuudaan dagaalku ibliis ku qaaday dariska dambeyn faahfaahintooda ku qaadan insha allah
والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قصة النبي آدم صدح خلقي بها ميشا يالا وصدح قلاء أيها كورها من ساق قصة قلوا ملائكتي لها يوم ما بالها وح شرع خير مويان قلوا الله بعدنا وحويان إبليس يعول كيسو ما بالها وح خيرا شر مويان قلوا صدحاتنا وأيه وإنك وهذا مية حواي نصه الرئاسة الكينية لا سينو دحينا كلام بيدو بين قنيس haddii aad ilaahay ka tala qaadanayso subxaanahu wa tacaala awliyadiisana ka mid tahay ayaankaaguna fiican yahay abaalmarin fiicanna aad helayso waxaad u hiilinaysaa malaa'igta dhinaca wanaagsan ee midigta ayaad raacaysaa xoojinaysaa ood ku biiraysa haddii qofku uu yahay qof xun oo dhinacii sharku uu qaalib noqdayna safka ibliis buu ku darmayaa marka digniintu waxay u taagantahay safka ibliisa ku darminaya saddexdaa qolaa taagana safka malaa'igta iyo awliyada ilaahay يا خلق إلهي أمر كقات كبيرة كضرب قال كم واحد تمد إلهي والله هذي ملائكته وأبو ري سبحانه وتعالى وحو جيسيو شاقي إنه دول كان الحديث كو أبو ري خليفة وجيسين تلما هاي وإلهي وبهاي هاي ملائكته أو تلاقي قالت لي لا وما بهنا سبحانه وتعالى خلق جيس لكن وإعلام وجيسين استشارة إلهي وما بهنا وحبك ما قرصونا إني جاعل في الأرض خليفة أرجع خليفة صدح معناه أيو قارن كرادي لنا علماء خليفة يخلف بعضهم بعضا والضد يجو استدلوا قرن مركو تجا قرن كلا نحله أو استبدليه نلاشوا سيا وصعد أما هو خليفة ويو عدي هراء كو أبورنا هالكن دول كمركا كو أبورنا ولا ذي دونا ينها هذاني عد بدشه ودولك عمرت أما هو خليفة شرعي إلهي الدين إلهي عد وكيل كجن نقطة إلهي الدنيا ده كنا قاتش سوف لسه وإلهي مركو كتبتي سكانه وحي جيسو يشرعي جيسو سودة تيو عدي مامل كنا قلنا هيدا وناقة كوه كامل له مركال كان وحي الدنيا دي وتاجين الله حب سارين مبني آدم إن الدون كوه جاميان ينورها كلا سسحنا وهو جاميان خليفة يعني ايش السوق على كلام ملائكة إلهي سؤال بويدين سؤال شنو ما هم العارض هذا ملائكة عين قاطعة لكن علمي بيدونيا وحيد هذا إلهي يوم وحد كو أبو ريسا دولكي قارفة سهادية أودي قدادية إياه أنا قلنا وناقونا نلتاقنا وحمد قاقا إياه التصبيح هذا إياه التقديس هذا وسبحان الله والحمد لله إياه نلتاقنا وواكو أمانينا إلهي بحوق جوابي وحنوقها وحيدان وجين وحيس ويدين له ملائكته مركز سؤاشن إلهي ويدين يان حقيقة أوجادين إن خلق جاني أي سيدا يالي دوران تيه يجاب الشيء وحيدان لا علم لنا إلا ما علمتنا إلهي يوم بأو شيء سبحانه وتعالى هو الشيء وبيسيه وحكى الله حسيت بضان دولك أول فسهادية ملائكته ويشيئين وده بني آدم كمعصية يقف بكوفة سهادين لكن دي جيبه وحي وحلقوا فسادين يمد قارة وكم إذا قار الله سوقت ويسفك الدماء وضادين تديجا تسوح عضين يسادين لأن علماء وحن لا إله هذا ديجا دادين تيس إنه يهاي فسهات كأوين أما اللي هذا أوين نقول كلا جيست أو حقول لك ما أما اللي بدي هاي مقدسات كل بابي حرمك إلهي لفسادية ولا حماية هي كعبة ولا الدمية وحلا مذا ديجا قفك مؤمن كهلا طاعيه وكمان رخيص كالنقضي يدك مسلمين تادي جودي للضادين حيا عالم كلجوا في السهادية وقدرن بكمدي سادرات بس سجارة أي ملايكة وعينين ولا هي وحوق جوابه وحنا جاي وحيدان جاي وارن علم أطوامه وكوبيه الله وحول وفوق كل ذي علم عليم مد ولا علم لبا مد علم لا كسي سرية وكسي سرية علم إلهي بيسقوب يشوب ما سبحانه وتعالى
سادرادد به هبونتها قفكو إنه عادة استئرق والله أعلمه نبي موسى رير بنو إسرائيل كوي دادين من أعلم الناس سوى خطبة خريعية ضد كياو علم بدنا أنا قبل دواتي لقى راعي هالكاه كورس دير بالله دراي وتخضر عندها لوجلي أنت صوت شر وكسر صاري وحانو جراني مركي ودنبو فسرينا هو أركينه يهاي واحد وكوكن عايو والله أعلم معناه وحي الشيء يسا إنسانكو وحادية شارو أصلا جهلي با وصلا مع علمي با وصلا قفك بني آدم كان يسجهلي جهلي با وصلا ما الدليل على ذلك إنه كان ظلوما جهولا نفتي سنو الظلمية يا قف جهول ومن جهل بدوي لما waxay yiraahdaan ka hadla aadaabta cilmiga loo barto marka ka hadlaya waxay yiraahdaan al-ilmu thalathatu ashbar cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibr al-awwal takabbara qofka taakada u horeysa qaada wuu isweyneeyaa waman dakhala fi shibr al-thani tawaadaca qofka taakada labaad qaadaana wuu isyara gaabiyaa oo uu joogsadaa ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم قفك تاكد صدحات قادانا جهل جيسو أركاه أنا مركز وحي سكالات دي لوردقا قيبت الندامي وحبرشة مركز ايكتو قفك مركز سكد دريقا مرة يموران كيسي جافا شرقي سو بدانيا أما هاتو حلقة دا جوغانا كتب تيريرا بلوغا مركو آخرستو قف والبا ولا مرميا واتكبرا مركو دقريقا قاتو جامعات كبحنا ديبو جوك سنيا PhD da markuu qaato markaasuu gaashaanku ku soo gaabanaya markaasuu arkaya jahligiisa marka la yiraahdo wixii la dhigay waa lagu dhameeyay adaa lagu sugaya laabud an takuna baaxitha waa inaad noqotaa mid maktabada wax ku soo kordhiya ummadda cilmi ku soo kordhiya adaa marti lagu yahay lagu eegayaa maxaad haysaa de madaxu xoqonaya marka dib uu fariisanaya marka waxay culimadu yiraahdeen iyaaka an takuna saahiba shibri waxaad inaga ilaalisaa inaad noqoto taakoole ka taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxaynu oran karnaa bariyahan dambe taakadaas ayna wareerisay siiba daayar kaasa iclaamkan iyo warbaahintan markii la helayna qofkii oo iska bilaabo muftibaabu isu dhigayaaba markaas uu ka sii deynaya taasi waxa weeyaan walaa taqfu ma laysa laka bihi ilm almuhim masaladaas waa mas'ala kale laakiin waa inaynu ogaanaa cilmiga inaynu baahina u qabno oo aynaan ka dhargeyn man humaani la yashba'ani taalibu ilmi wa taalibu dunya laba ka kani ama mamani ma dhargaano qofka cilmi doonaya iyo qofka maal doonaya saan maalka looga dhargin cilmigana loogama dhargo inni a'lamu ma la ta'lamun marka adoomuhu laba arimood waa inay caadaystaan in sha Allah wallahu a'lam labadaasi waa muhiim talaabooyinka mustaqbalka in sha Allah waa kugu badato iyo wallahu a'lam wixii aad sheegaysaa nabi aadam alayhi salaam malaa'ikti waa kuwan yiri maxaad ka abuuraysaa isaga iyo awlaadiisa ilaahay baa markaa wixii ogaabu doonaya inuu u muujiyo nabi aadam wuxuu baray magacyadii oo dhan kullaha thumma aradahu marka magacyadaasi waxa la barayaa shay walba iyo magaciisa shayada waa ismigii iyo musamayaadki magacyadii iyo wixii magaca loo ahaa oo thumma aradahum uu soo bandhigay muxuu soo bandhigay waxa la soo bandhigaya waa shayadii magacyada lahaaba ilaahay uu soo bandhigay subxaanahu wa ta'ala malaa'iktii uu soo hordhigay wuxuu bal waxyaabahan in hor yaala magacyadooda ii sheega marka shayada halkan la soo dhigay culimadu waxay leeyihiin waa shayada ay u baahan doonaan bani aadamku adduunyadan ilmo bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay oo malaa'iktii uu hor keenay nabi aadam hor keenay magacina way wada leeyihiin waxa halka laga faa'iideysanayaa bay leeyihiin culimadu luqadda iyo magaca yaa dajiya waa mas'ala khilaafiya laakiin sida raajixa waxa weeye inuu ilaahay dajiyo subxaanahu wa ta'ala luqadaha yaa u bixiya dadka ilaahay waa u bixiyo baraa sidoo shay walba oo abuuray uu luqadiisiina isagu abuuray marka haddii xataa dadka qaarkood meel la isugu xareeyo gaara luqadda ay la baxayaan ilaahay u baabara subxaanahu wa ta'ala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfadaha u yeeshaan laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay sida halkan baa aynu ku arkayno waxaad ka arkaysaa ilaahayna waxba ku adkaan subxaanahu wa ta'ala maskaxdaada yara liidataha odhanin
ووحنا ودن إلهي تلو هلكو كسو قري هذا أنا مركي دم هلكو كعلي دم وحباكو أتكالا وحباكو ما أتكالا رب لو تهروا كوسو شيء وهو بكل شيء عليم وحول بإلهي وكرا وحول بوجيه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا وحي هذا المركا ملائكة سبحانك إله وأديك حمان كوفا لا علم لنا علم ملهن إلا ما علمتنا وحي أدنا برتين وياني إنك أدو أنت أدو العليم الحكيم من علم بدن باتهاي حكمتنا له قال مركا إلهي وحول يا آدم نبي آدم أنبئهم بأسمائهم ملائكة وحدو شيكتا شيئا مقعيدود أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم مركو ملائكتي ورمي وشيغي شيئا مقعيدود قال إلهي وحول ألم أقول لكم وميانا ندين كورنين إني أعلم وأنه وحانوغا غيب السماوات والأرض وحمقا السماوين ككم مقان يدولك وحكم مقان بانوغي واعلموا وحانوغا ما تبدون وحا موجسان إيسان وما تكتمون يوحا قرسان إيسان أبدا بوانوغي صوتان دين شيئا ساسا إلهي وكل سبحانه وتعالى مركالك مستفاداتك أي نقصدك قادنا إنا وحوي أن إثبات القول لله سبحانه إلهي قول بوليه حرف له عضنا له وإنك آخرين وكلام كيس السيدة دتك قاركود أما فرق لها قاركود الله حدا أو إلهين إلهي كلام كيس ذات ديس أما يسقون بقوة ما يوم سوجد بين تاس صح معها إلهي وحول بينه فراء وحبا أنا كو أتكاني بينه هل كان كأركينا فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حبكم أتكادان وحول دانو السمايا إذن وحبا ويدين كرتو ملائكته وعالم غيبية وغيب كأن جمع قبل كامدي وحين كرمينا أنت وحي يقولنا شيء وحن وحي يقولنا شيء كما رمين كرنا أما كما أوران كرنا النبي يقول نوح الشيء عليه الصلاة والسلام لأن النور لقى أبو ري هل كتشينك شياطين النار لقى أبو ري شياطين تي أباريست يجانا نور با لقى أبو ري إننا عيد با لقى أبو ري النبي عدي عليه الصلاة والسلام مقركودي حرونتooda ay degan yihiin waa caalamka Koreya sabada xigmada Ilaahay waxay keentay bani aadamku inay sidan u farcamaan waana xigmada guurka loo jireeyay guurka waxa loo jireeyay inuu dadku tarmo oo khaliifa ay kala noqdaan ay istabahayaan waxa qisada aynu ka faa'iideysanayna dadka adduunyada ku nool in madaxdu ay laga maarmaan u tahay وwaxa fawda la yiraahdo iyo madax la'aan aanay ku soconayn masaa'ilka muhiimka ee muslimku uu aaminsan yahay kamid tahay inay yeeshaan madaxdaasina ay wanaagsanaato diin iyo dunyabana ay u hagaajiso waxa fawdada la yiraahdaana waxyaabaha lagu halaagsamo way waxaynu halkan ka arkaynaa qofku haddii uu wax shay wanaajinaya inuu sheego inaanay ceebaan lahayn عيب ماله وملائكة تلك وحينا ونحن نسبح بحمد وناجي أي قبنايين أيوم بنشاجين لكن وحنا أجينا حكمته ماشي كشرة أيا ربنا هلكن وشاجا يا وعدي شرع جوحي وناشاجا وين نقاضنا أحبطنا دنتي نابا كشرة وأين أجينا ينهري دورنا مركا أين راعنا وحنا هلكن كأركينا فضلك يشرفت أولي هاي علمي والنبي آدم عليه السلام ده معلم بو نقضي ملائكتنا أرضي بين نقضين ملائكتنا أرضي بين نقضين marka ibn kathir rahimahullah sidoo leeyahay waxa halka ka muuqanaya buuri inuu de macallinka arday ka fadli badan yahay Soomaa ardaydii kol haday malaa'ikta ardayna muallim uu noqday fadliga nabi aadam cilmiga uu ku fadli badan yahay baa ilaahay halkan uu ku muujiyay adoomaha qaarkood inuu ilaahay cilmi dheeraada siiyay inuu arkayna oo khalqigu da xaga cilmiga waa ku kala fadli badan yahay awliyada ilaahay iyo saalixiinta oo wanaagsan waa ka nabi aadam ba ka fadli batay malaa'ikti xaga cilmiga imtixaanka shayga la yiraahdo wax iska jira weey oo quraankuna uu ina baraya dhaqanka nabi maxamedna uu ina baraya calayhi salaatu wasalaam imtixaan baa laga qaaday nabi aadam iyo malaa'iktaba nabi aadam baa ku guuleystay saasoo kale uu tartanka uga qaaday imtixaanka nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam
ardaydiisa iyo dee asxaabtii. qofka bani aadamka waxaa u habboon inuu naftiisa garto qadarkeeda oo aanu isqaadqaadin qabna isu yeelin, waxaanu garanayninna aanu isku qaadin. waayo malaa'igtu way isdhiibeen markii ilaahay uu ku soo saaray arrintan iyo nebi aadam cilmigan uu siinayo. waxaynu ka arkaynaa malaa'igtu siday ilaahay u weyneynayaan subxaana wa tacaala iyo erayaday ku jawaabeen qiimaha ay leeyihiin. sifaadka ilaahay bay ayaa aayaadku ay noo caddaynayaan, alcaliim alxakiim, oo inoo muuqanaya. waxaa markaa ilaahay u gudbay arrin kale oo iyaduba ah imtixaan. qaala allahu tacaala waid wakti xus nebi moxamedow qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu liaadam nebi aadamu sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ka la yidhaahda mooyaane abaa isagu wuu diiday wastakbara wuu isweyneeyey wa kaana min alkaafiriina gaaladana uu ka mid ahaa. waqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta wa zawju adiga iyo xaaskaagu aljannata jannada dega wa kulaa minhaa jannada waxaa ka cuntaan ragadan cunitaan waasica oo ballaadhan oon xad lahayn xayثu shi'tumaa goortaad doontaan iyo meeshaad doontaanba wax ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedan fatakuunaa min aaalimiina waxay idinka mid noqon doontaan kuwa dulmiga sameeyey. faazallahuma shaydaanu shaydaankii wuu ka soo simbiririxiyey canhaa jannadii buu ka soo simbiririxiyey wuu ka soo tuuray. faأkhrajahumaa wuxuu ka soo saaray nebi aadam iyo xaawa mimaa kaanaa fiihi barwaaqadii iyo khayrkii badnaa ay ku dhex jireen buu ka soo saaray. waqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi ihbiطuu dega bacdukum libacdin qaarkiinba kuwa kale cadowbaa isu tihiine dhaafa halkan. walakum fi lardi dhulkana waxaa ku leedihiin mustaqarun meel aad degtaan wa mataacun iyo xoogaa raaxo ah oo ku raaxaysataan oo ku casuumantihiin ilaa xiinin inta aa adduunka joogtaan markaa ku waari maysaana intaasaa ilaa intii muddo ka aho inta dhimanaysaan. imtixaan ka bilaabmay waxa weeye nebi aadam ayaa la faray inay u sujuudaan malaa'igtii. malaa'igtu ilaahay amarkiisu bay qaataan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yumaruun. waa khalqi u taagan inay ilaahay adeecaan oo aanay caasiin saynu horeba usoo xusnay waxigana ka arkayno. sujuuddaasi la faray waxay dhinac ka tahay sujuudu tashriif, dhinacna cibaado. dhinac waxay ka tahay tashriifoo nebi aadan baa ilaahay ku maamuusaya, dhinacna cibaaday ka tahayoo dee ilaahay amarkiisii baa la qaadanaya. ilaahay amarkiisa kii diidayna inuu gaaloobay baa ilaahay u tilmaamay wa kaana min alkaafiriin. marka ilaahii sujuudda lahaa ayaa yidhi aadamkan u sujuuda. marka nebi aadam lama caabudaye ilaaha amarkiisa la qaatay ayaa la caabudaya. idan markaa dhinacaa cibaaday ka too amarka alleh mar haddaad qaadato waa cibaado. dhinacna waxay ka tahay sharfidoo nebi aadam ayaa ilaahay uu ku sharfaya. sujuuddaas in loo sujuudo innaga sharcigeennan cid aan ilaahay ahayn sharcigeennu wuu diiday. sujuuddan horta waa maaha sujuudulinxinaa, sujuud foorarsiya maaha oo qofku foorarsanayo, laakiin waa sujuud fooda la dhigayo. faqacuu lahu saajidiin, sujuud u dhaca buu ilaahay subxaana wa tacaala, sujuud u dhaca ama waabay sujuudeenba. markaas in cid kale loo sujuudo oo khalqiga ka mid ah waa la diiday. sanab looma sujuudayo, bani aadamna looma sujuudayo, madaxna looma sujuudayo. asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim markay soo arkeen nimankii gaaleeda boqorrada ahaa, boqorradii reer yurubiya reer eeraan iyadoo loo sujuudayo,
dee nebiga waxay ku yidhahdeen adaaba ka fadli badan amaan kuu sujuudno anigu addoonkii ilaahay baan darajada in la idhaafiyana ma jecli sujuuddii halkaasay ku hakata marka cid madaxa loo fooranayo iyo cid fooda loo dhigayo labaduba halkaasay ku hadheen laakiin ilaahii sujuudda lahaa baa nebi aadam yidhi ha loo sujuudo subxaana wa tacaala ibliis baa isagu isa soo taagay ibliis waxa uu ka yimi meeshuu joogaa oo isaga laftiisana dee khalqigaa ilaahay wax ku tusayaayoo malaa'igta ayuu goobtan la joogaa ilaahay baa xikmad ka leh waxa uu halkan u keenay oo waa kaa dee aynu casharadii iyo duruusta iyo cibrooyinka ka qaadanayno isagu meeshuunbuu ka soo boodayoo amarkuna wuu ku jahaysnaa markii la yidhi sujuud isagu wuu diiday istinuu mutasilna wuu noqon karaa munqadicna wuu noqon karaa waa laba macnoo kala gaar ahoo mustathnaa iyo labada shay la soo kala reebaya markay isku qolan yihiin waa mutasil baa lahay hadday kala qolan yihiinna waa munqadic baa lahay waxaad isweydiinaysaa talow muxuu sujuudi waayey markaa ilaahay baa ka jawaabay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin su-aashaadii saddexdaasaa laga jawaabay cudurdaar muu lahayn ma maqnayn muu xanuunsanaynin muu hawlaysnayn laakiin wuu diiday waanu kibray gaaladana wuu ka mid ahaa marka ayadda waxyaabaha inoo caddaynaysa waxaa ka mid ah cudurrada ibliiska ku dhaco waxaa ka mid ah ilaahay oo la diiday subxaana wa tacaala cudurrada ibliis uu leeyahay ee bani aadamkana soo gaari kara ku dhici kara diidmada ilaahay la diidaa waa shaqo ibliis kibirkuna waa shaqo ibliis waxaana labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo qur-aanka ilaahay muxuu ku yidhi markuu hadlayay wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin dee anaba ka khayr badane ka khayrka badani miduu ka khayr badan yahay siduu ugu sujuudi karaa markaa wuxuu keenay qiyaas iyo daliil caqliya oo daliilkii ilaahay ka hor jeeda oo faasid ah wa kaana min alkaafiriina waxay caddaynaysaa gaaladu ka mid aha kaana min aljinnina way jirtay fafasaqa can amri rabbi malaa'igta kamuu mid ahayn ayaa halkaana ka muuqanaya inaanu malaa'igta ilaahay ka mid ahayn ibliis laciin waxa markaa aayaddu ay noo tilmaamaysa qur-aankuna meelo badan xusay cadowga koobaad ee insaanku uu leeyahay inuu yahay maxay kaa aabbaheen weerar ku soo qaaday ibliis la yidhaahdo ina shayطaana caduwun lakum faاttakiduuhu caduwan shaydaanku cadowgu idin yahay cadow ka dhigta ayaa ilahay wey nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii xaawo ilaahay digniin buu siiyey ibliis baa looga digayaa innagana waa la inooga digay digniintaasina way soconaysaa qofkii qaataana wuu guulaysanaya kii kalena waa guuldaraysanaya ilaahay wuxuu nebi aadam iyo xaawo jannadii dega baa layidhi uskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega jannadaasi waa tee ma janno ku meel gaara bay ahayd mise waxay ahayd jannatu lkholdi tii lagu waarayay qowlka culimmadu u badan yihiinna raajixa waxa weeye waa jannadii lagu waarayay ashaasaa sheegaysa cahdi waa cahdiya waa janno la isla ogyahay waa ta qur-aanku uu ka warran waa ta qiimaha badan wey ilaahay ma caameeye subxaana wa tacaala addoommaha meeluu ku soo reebay oo uu ku caameynaya maaha waa meel ay ku barwaaqaysnaana waa jannadii asalka ahayd wey jannadaasaa la yidhi deg adiga iyo xaaskaagu xaaskiisu dee waa xawa qur-aanku magaceeda ma cayimin laakiin waa xawa weeye xaawiyey ku abtirsata xaggee ka timi dee nebi aadam wakhalaqa minhaa zawjaha iyada unbuu isagunbuu ka abuuray iyada muran iyo jaafaajiriq ma keeni karnoo ma odhan karna tii laga abuuray dee siduu u guursaday dee ilaahay waxna xalaalaynaya waxna xaaraantinimeynayay ayuunbaa intuu ka abuuray islaan uga dhigay iyo oori aadam ubadkiisuba cid kale ma ahaynine ti intii hore kumeelgaadh bay ahayd oo waa la isguursanayay oo carruurtuunba xalaal isu ahay markii dambe dadku batee la kala durkay ayuunbaa laysu taltallaabay naski baa la yidhaha wax naski diimihii hore samaawiga ahaa naski bay lahaayeen markaa kolkii dadkii batay baa waxaa la nasakhay guurkii walaalaha التحليل والتحريم حق له تعالى حلالينتي حارانتنمينت حق لها iska leeyay inagu amarkiisu baynu qaadanayna mar walba wixii uu inoo sheegun baa sax waxa halka ka muuqanaya ninna inaanu xaas ka maarmayn oorina aanay ninka maarmayn hadii ay markaa kala maarankaasi jiro halkiisu iska wardii ilaa nabi aadam odaygaas islaanta uma baahdeen aabaheen iyo hooyadeen
marka waa duruufu xaaslaantu waa duruuf dhalinyaro Allah idin sakhiree waa duruuf idin haysa un xaaslaantu waxay yiraahdaan culimada ahkaamtu faqiir yaa la yiraahdaa faqiir al-faqiru man la zawja lahu bayna faqiir waxa la yiraahdaa qofkaan xaas lahayn baarkin ba male shantad ba male meel wax ku ritaba male hadduu caawa awr qasho wasladun buu ka cunaya u dhaqaajiyay laakiin de hadduu xaas leeyahay imisa weel baa loo buuxinaya marka ku dadaala guurka inaynu fudaydino oo caqabadaha hor yaala ee habluhu hor dhigayaan ama wiilashu hor dhigayaan ama waalidku hor dhigaya ha laga qaado qaar khayr lana Allah idin sakhiro ama Allah ina wada sakhiro way taasina waa taa way waa mulaaxado kale oo jira waayo insaanka asalkiis oo nabi aadama ooridaas u baahan meel kale lagama keenina isagii baa laga jeexay saasa marka noloshu ay ku bilaabantay guurkuna waa sunnada nolosha sunnada iyo habka noloshu u soconayso ay ku soconayso waa taranka khaliifa dee taranku uu go'ay lahaa marka maqaasida iyo ujeedooyinka guurka ka mid tahay inay dadku tarmaan sidoo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam taranka badiya waa la isu faanaya ambiyada ilaahay baa isu faanaya maalinta qiyaamaha jannada deeqda taala waa mid ballaaran la maqtuucati wala mamnuuca wa kula minha ragadan haythu shi'tuma meesha doonaysa waa cunitaanku waa waasac busaarad ma laha xad ma laha deeqad ma laha way waasac weey laakiin waxa la geedkan ha u dhawaanina waxay sheegaysaa hafalin bay ka horeysaa waayo xaaraanta haddaad u dhawaato waxa sahlan inay naftiyo shaydaanku kugu riixaan waa kii nabigu tusaalaha bixinayo seeraha xiran xoolaha lama agdaajiyo way u dhacayaan marka waxyaabaha nafta aad ku kalifaysa waxa kamid ah inaad xumaantii xaaraanta ku yara ag warwareegta tiraahdo ma anigu waan iska adaga waxba iskama adkida iblis baa ka adkaan doonee ha u dhawaanin meelaha dabku ka baxaya dabka xaaraantu meeshu ka baxayo waa qaawanaanta iyo meesha wax lagu cunay xaaraanta lagu cuno iyo dalkeeda iyo dadkeeda ka durug si aad u nabad gasho waa ka wala taqrabu zina soomaalada zinada ha u dhawaanina halkan geedkan ha u dhawaanina sababtii iyo wadadii baad haysaa kol hadaad xaaraanta ku dhawaato uumigeedii baa kugu baxaya dabeetana nafti waa daciif way iska xijin marka dambe way kula soo kacaysa ولا تقرب هذه الشجرة geedku muxuu ahaa de quraanku ma cayin geedkaasi magacaya rag qaarkood u sheega magac mar hadaan quraanku u bixinin deeynagoo ma magac bixinayna waa geed la calaamadiyo fatakuna min adh-dhalimin shaytaanki wuu ka guulaystayo wuu simbirraxiyay quraada qaarkood baa qira sugan akhriye fa azalahuma izaaladu waxa weeyaan uu durkiyo waa ka saaray meesha isku macnuun bay noqonayaan iyo uu simbirraxiyay simbirraxay noqonaysa qofku markuu macsiyada ku dhaco wuu simbirraxday waxa taqaanaa qof soconaya simbirraxdayna inuu araxda ka jabo u dhowyahay waa halaag waxyaabaha lagu halaagsamay فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه موصول كاسوح التلمامة يلا إذهامي إلا وأسماء ذي مبهم كهيدة وحي وينا براره هي برواقدي أي هيستين أيو كسور لحصار يسيدوا قصوا صارين آيات دي هرين سورة الأعراف أي آخرين وحول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سياه سورة الله ما كنت سياه كيد مركا لعنه وواريا ولقانا أذيك آية اسكيا لنا على شجرة الخلد وملك لا يبلى واد واريسا إنسان كل أدبو تعلي لبضع إنه وح بدن هلا كنا واره وما كانوا بقرطويه هلا حوله هلا نكرم أدبو تعلي وفضاضو تمادين مكمل قبينا أما ملح الدعاء ووجه عليها وحوي محي أطال الله عمرك عمرك الله كل واري ميسد سانو جعلين الله نو كادا يوم جعلي الله كداي ايو جعلي inkaasi si gaar uga warhaynaya hadaba la deynba maayo u dhimanaya marka siyaabaha bani aadamka dabeecadiisa waxa ku jira ku abuuran inuu waxna yeesho kula waaro laakiin taa jannada lagu helayo inaga hore soo aragnay waxa halkan ka muuqanayeen arkaynaa waqulnaha bitu ba'dukum li ba'din adaw jannadu way sareysaa waa caalamka kore wa fi samaa'i rizqukum wama tu'adun samada waxa saaran buu ilaahay arsaaqadiina oo ka imanaysa iyo jannadii la idin yaboohay
naaruhuna dee way hooseeyaan iyaguna asfala saafiliin damiirka yaa lagula hadlayaa jamaca ihbituu bacdukum libacdin cadow waa ibliis waa aadam waa xaawa weerarka u horeeya ibliis baa haya oo wuxuu ku hayaa aadam xaawa iyo caruurtooda iyaguna cadow bay isu yihiin oo adiga arko ilmo bani aadam dee way isku taagan yihiin oo way isku foogan yihiin mar haddii jannadaa la soo dhaafay xarbigaas iyo dagaalkaas inta adduunyada la rogayo uu soconaya cadaawaddaasaa soconaya walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin dhulka noloshan lagu nool yahay waa istiqraar bay leedahay dadku inta ay ku nool yihiin dhulka istiqraar bay leeyihin deganaasho mustaqar soo maha laakiin haddaynu meelaha kale kawaakibta ka baarbaarano sidanay gaaladu yidhaahdaan meel kaloo lagu noolaan karaa jira laguma noolaan karo istiqraar ma laha meelaha kale hawadana kuma noolaanaysid dad baa badaha dega sida China iyo marka dhulkii buuxsamay xaafadaha badda laga jeexay nagu dhul way baynu iska xidhanaa Soomaa dad baa dhulkiiba ka dhamaado markaas ay badaha degan istiqraar ma leh inkastoo badda ay ka mid tahay dhulkii laakiin haddana way si kala fiican yihiin wamataacun ilaa xiinina waxay tilmaamaysaa noloshan adduunyada waa raaxo mataacal xayaati dunya waa raaxo kooban oo ayaam leh ilaa xiinin laguma waarayo haysilaawi meeshu ma jannadii ana casoobin waa raaxo yar oo waqti xadidan leh ilaa xiinin ilaa inta adimanayso way marka halka waxaynu ka arkaynaa qisadan iyo faa'iidooyinka ay leedahay oo aad u badan halkaasay noogu joogi hada ma aquluhu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam